Assalaamu calaykum. Toddobaatan dhalinyaraha ayaa la dilay jirkoodana waa la xasuuqay kadibna hilibkoodii ayaa loo iibiyay sidii doonfaarka oo kale. waa sheeko naxdin leh taasi ku saabsan fambaayirkii hilibka dadka iibin jiray ee ugu caansanaa dalka Jarmalka. xaaladaha dhaqaale ee Jarmal waxay ahayd mid aad u xun markii hilibka uu qaali noqday, balse Peter Hartmann ayaa hilib raqiis ah ka iibin jiray dadka, walibana si qiimo jaban dadka ku nool Jarmalka, gaar ahaan gobolka Hanover, kuwaasoo rumaysnaa in uu Hartmann ahaa nin wanaagsan, mana aynan ogeyn inay cunayaan hilibka aadanaha. waana laga yaabaa inuu cunay qaar ka mid ah waxay ahaayeen hilbaha wiilashooda dhalinta yar oo si qarsoodi ah u baaba'ayay. dadka degan Hanover waxay ogaayeen in Hartmann uu ahaa mid caan ah, balse waxay xaqiiqdii u maleynayeen in uu ahaa saaxiibkooda u dhow. marka la eego booliiska waxay u tixgelinayeen inuu yahay nin ay jecel yihiin maadaama uu sanado badan kala shaqeeyay baadhitaano badan, sidaa darteedna iyagu in ka badan hal jeer ayay iska indha tireen dhaqankiisa aan caadiga ahayn ee dhibaataynta carruurta da'da yar. balse booliiska ma aysan filanaynin in arrin aysan ku koobnayn dhaqamadiisa oo kaliya dayacaad la'aantooda. muddo 6 sano ah Hartmann wuxuu ku kacay dambiyo fara badan oo gaaraya ilaa 70 fal dambiyeed. ugu dambeyntiina waxaa la sheegaa in uu qirtay 24 ka mid ah fal dambiyadiidaas. markii dambiyadiisii la ogaaday, Hartmann wuxuu caan ku noqday fambaayirkii Hanover, waxaana la sheegaa in uu ugu dambeyntii qirtay dambiyadiisii xusuuqa, balse booliiska ayaa shaki ugu galay in uu galay dambiye intaasi ka badan. Hartmann wuxuu dhashay sanadkii 1879 wuxuuna ka mid noqday militariga Jarmalka isagoo jira da'da 16 sano, balse waa laga soo saaray iskuulkii uu ku tababaranay jiray sababtoo ah wuxuu qabay cudurka suuxdinta, waxaana la geeyay isbitaalka dhimirka. isna uu ka baxsaday muddo markii uu joogay, waxaana la sheegaa in uu u baxsaday dalka Sweden. Hartmann waxa uu galay dambiyo badan, sidoo kale isagoona jeclaa in uu u galmoodo da'da yar, waxaana la sheegaa in uu ilaa yaraantiisii bilaabay inuu u galmoodo ragga waliba kuwa da'da yar, isagoona meelaha luqluqyada iyo gidaarada ku luflufan jiray.